bal dhacday yaro aniga aan u soo joogay baan doonayaa inaan in yar idinka yaro warramo si democracy laga yaabo in dadka qaarkii maskaxdooda bedesho subax arooro jimcaan soo kacayo gurigeygan ka soo baxay fasax baan ahayo waxaan imid suuq gurigeyga u dhawaa waa suuq aad u weyn oo ilaa Mansoor 10 kiilo ilaa 2,000 dukaan baa ku yaala magaaladu markaa waa Nigeria waa Abuja marka soo baxay suuqii soo galay Nigeriantu waa niman dadka sida wax looga iibiyo fataa dhugta iyo waxa ku fiican marka suuqa gasho waxaad u galaysaa rag suud wada gashado albaabka taagan oo ku waranay maxaa doonaysaa marka qaarkood maxaa doonaysaa waxay ka wadaan maadaama dhulku wada dukaamo is wada daba yahay wixii baad u sheegaysaa marka meeshii buu garanayaa aad ka doonayso marka si ku geynayaayo hadhow ka dukaankana wuxuu ka qaadanayaa dilaal yar qaarkoodna iyagaaba la dukaamada waxay doonayaan qofkan soo galay inay sii kaxaystaan ma dhar baad doonaysaa ma waxa doonaysaa kabo ma waxa doonaysaa maacuun ma waxa doonaysaa dharkii haweenka ma waxa marka halkaas wada taagay marka waa lagu soo yaacaya markaba mid yaro caruura ayaa ku jira markaas isagoo ordayo hoosta iga soo galay xasid ilaa 13 jir 14 jir buu ahaa markaas igu yiri maxaa doonaysaa markaas maxaa tahay kullayba marka dad waaweyn wada aragta mid yaro nagnagtahay waxa sooranaysa balada ka yar wax weydii saad maxaad adigu tahay markaas uu yiri waxaan ahay chairmanka shirkadda dahabka ee maxay markaasaan wuxuuga xisaab ku qabanay marka chairmankan yara meesha taagan chairmanka waa maxay shirkadda marka qof walba wuxuu sitaa business cardkiisii si business cardkiisii dhiibay isaan eego chairman maaragtay shirkadda dahabka ee maxay marka waan yara xiiseeyay kan yara caruurtay haddana chairmanka shirkadda dahabka saan maxaad leedahay suu shirkadda dahabka le hada shirkadda dahabka le inaka soo marka daana camalaan bay yara hayso suuq iska yara soo yara warwareeg baahay suuqi baan u raacay sidiisii wadoon buu ii geeyay saxaarad yaro alaab laga saaray oo meel yaro wada dhigtay oo title-kiisa magacu ku yaalo shirkadda dahabka maxay waa saxaaradahan alaabada lagu soo dejiyo tan kala barkeeda oo maran saxaarada dusha waxa ka saaran kalbad yar duba yar burush yar iyo bahal yar oo baastoolad mood markaas aan idhi hay maxaad qabataa marka shirkadii wixii aan kaarka ku arkay noqon weyday maxaad meeshan ku haysaa wuxuu guuri suuqada ilaa 10,000 oo qof oo ayaa gelinkiiba soo gala oo wax iibsanaya rag iyo dumarna Nigeriantu hadiyo goor silsiladay xidhan dahab iyo silfar iyo dumar iyo ragba wuxuu yiri waxaan aqaanaa farsamada dahabkan 1 minute gudaheed lagu qurxinayo oo waxba ku sameeyo dahabkii buu ka dhigayaa sidii maalintii aad iibsatay oo kale ila dahabku isbedela kalarkiisu ama silfarka qalinka waxaan qalinka isbedelay kaasaan safeeyaa buu yiri marka dadku inta wax iibsanayaan ma dhab u safeeyaa waan siiyaa wax yar ma ka qaada waxa saan ururiyaa marka wixii haddana macnaheeyo la sameeyay haddana maaragtay waan iskala fadhiisto sheekaanu bilaabay wuxuu igu yiri walaalkayo dukaan weyn oo dahablaale ayaan 2 sanadood la shaqeynayay marka 2 sanadood la shaqeynayay baan sanadkan ku yiri warniyow anigu waan iska shaqeysanayaa waxay waxaygii ande ama xuquuq waxaan u helay $80 $80 baa la siiyay $40 waxaan ku dirtay inuu bahashan baastoolada yar oo eego waa bahal dabku ka soo baxayo marka dahabka la qabto sidaa lagu oranayo kuleel badan ka soo baxayo dahabka yaani kululaanayo $40 soo haray waxa siistay IC yar burushka yar iyo waxan yar maxaad markaa qorsheynaysaa wuxuu igu waxaan qorsheynayaa ilaa sanad dabadeed 2 sanadood in dukaan dahablo ka walaalkay kala aan furto investment-kaagu u soo haray $80 marka dukaan dahablo aan furanayaa 2 sanadood dabadeed marka Dubai baan tagayaa waan ka soo dejinayaa dahabkan waxaan keenayaa halkan Abuja waa la iga iibsanayaa dukaan weyn baan kareysanayaa wada lacag ugu filanaysa ururiyaa walaalkay baan ka bilaabaan garanaya 2 sanadood dabadeedna mid yaroon walaalanahay baan ku soo bedelayaa halkan qabsanaya shirkadan weyn balaayada ka dhacday marka meesha taagan
mid yaroo aan walaalanahay ayaan keenayaa shirkaddan la wareegayaa anna dukaankaa weyn ayaan la wareegayaa kii yaraan fiirsada wuxuu yidhi bal kaatukaan gashana kaatukaan yar soo bixiyo waa soo bixiyey dirrig uu soofeeyey dabkii buu geliyey ICD buu geliyey waa afuufay maruu mariyey isagoo dhalaalayaaba wuxuu yidhi de shirkaddaasaana marka kale intaana ka iman baa niyadeyda waxaan weydiiyey tol hargeysa imse qof baa $80 heli karaa saan hargeyso dhan horta way heli kartaa dhalinyarta dib joogto saan imse qof baa ku hamiyeysa inaad shirkadda hablaa ku furato 2 years saan cidna kuma hamiyeysa 80 baad sheegtay 800 maad sheegtay 8 maad sheegtay anigu markaa haddaan doono lacag 100 goor ka badan intuu haysta ayaan kaba fakirinba dukaanka hablaa isku maqiiq waxaan ka wadaa marka aad doonaysa inaad horumar samayso dhowr arrimood oo yaryar ayay rabtaa oo ka duwan lacag haddii lacagta kugu soo horeyso jar baad ka dhacaysa kow horta waxaanaad qabanaysa inaad xiise u hayso oo inay lacagta kugu kalifine ay tahay waxaad xiise u hayso ka yar xiisaha ka muuqday iyo mirqaanka ka muuqday marka uu waxaan ka sheekaynayo markuu wado waaba la yaabayba waayo walaalkii ku soo dhex koray dukaankiisoo waxaanuu xiise badan u hayay laba inuu maaq kuu salaysan yahay maskaxdaada wuxuu ku leeyahay 2 sano baan walaalkii la shaqeeyey sanad kalaan sii wadayaa sanadna halkanaan idinku waday sanad kalena waan sii wadayaa sanadka saddexaadna dukaan weyn wuxuu garanayaa intaa 4 sannadood ka sheekaynayo mid walbaba halka uu gaariyay istabka uu gaariyay iyo lacagta uu seefgareeyay iyo inta u dhigmaysa iyo halka kale wax ka doonanayo iyo halka dahabka ka doonanayo dubay iyo sidoo diiseeda u helayo waa nin maaqan oo Google madaxa ugu jiro halka uu marayo